السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة جانل كنا BMA Production وأنيقو BMA maanta waxaan idin la wadaagi doonaa afarta application ee ugu wanaagsan muuqaal samaynta haddaba daawasho wacan KeyMaster runtii waan xasuustaa application-kan markaan YouTube-ka bilaabay ayaan isticmaali jiray oo waxa ii ahayd application aan wax waliba ku qabsan jiray hadday ahaato muuqaal samaynta qoraalada iyo transition-ka wax waliba aan u baahnaa ayaan ka heli jiray ilaa haddana waan isticmaalaa marka aan ka fogahay laptop-kayga description-ka ayaan ku soo dhigayaa kii u dambeeyay application-kan wuxuu leeyahay unlimited layer taasoo macnaheedu tahay in aad muuqaalo badan soo gelin karto halkii marka hore aad soo gelin jirtay kaliya 2 layer sidoo kale waxa lagu soo kordhiyay transition aad u qurux badan hadda waxaad weydiinaysaa application-kan waa soo degsaday oo sideen u isticmaalaa marka wax adag maahan laakiin markii aan bilaabay aniga waxay ahayd application barashadiisu aad u adag tahay laakiin taasi waa ka indhaadagay haddana waxaan isticmaalaa Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Camtasia iyo Filmora. waraab bashir maxabiintu sheegaysaa Adobe Premiere Pro ma isticmaashide Okay kareeb Adobe Premiere Pro inta kale waan isticmaalaa maxaasas ku diidanayo Filmora Go waa application macquul ah oo aad ku samayn karto muuqaalada waxaa iska leh shirkadda soo saarta software-da Filmora 9 ilaa Filmora Pro sida magaca ka muuqata wuxuu leeyahay feature badan laakiin iskuma taagi karo application-ka KeyMaster oo waa laga feature badan yahay eesaas tahay haddana waxyaalo badan ayaad ku qabsan kartaa Power Director waa application dhammaystiran sida KeyMaster oo kale waxaad adeegsan kartaa chroma key oo ah inaad marada cagaaran ka saartid yacni green screen wuxuu kaloo leeyahay qoraalo wata animation mid ugu muhiimsan waxa waaye inaad stabilization ku samayn karto muuqaalada girgiriirayo waxaad kaloo aad sixi kartaa kalarka muuqaalada 4K ahaan ayaad u save garan kartaa sidoo kale iyadoon meesha ka maqneen frame-ka waxaad ku save garan kartaa 60 frame per second meesha waxa ka iloway transition-ka waxa iga dambeeyay transition aan indhaba caadi ahayn kuwaasoo badanaa la adeegsado waxaad ogaataa haddii aad Play Store-ka kala soo degto application-kan in aadan heli doonin feature badan qaarkii waxaan ku soo dhigayaa description-ka waxaan ka wadaa muuqaalka hoostiis waxaad arkaysaa calaamad yar oo 3 xagal ah kaastaao waxaad helaysaa application-ada aan ku sharxay linkiyadooda waadna soo degsan kartaa waxaan rabay inaan muuqaalkan ku soo gabagabeeyo Adobe Rush laakiin kuma shaqeynayo telefoon kasto kaliya wuxuu ku shaqeynayaa telefoonada version-kooda ka bilaabanayo 9 iyo wixii ka sareeyo sidaas darteed ayaan ugu soo qaadan waayay afarta application ee muuqaalada lagu sameeyo haddana waxaa booskaas inuu buuxin doona application-ka application-ka waxsaas ma qabanayo laakiin sawiro iyo muuqaalo ayaa ma aragtay animation ku sameynaysa waxaad saaran kartaa music aniga dhowr mar ayaa ma aragtay isticmaalay waa application xoogaa iska roon haddii aan u soo laabto su'aasha laga yaabo inaad i weydiisaan sidee KeyMaster u isticmaali karaa hadda ka hor ayaan tutorial ka diyaariyay laakiin cilad darteed ayaan uga saaray haddii aad rabtaan in aan mar kale ka diyaariyo muuqaal tutorial ah hoos igu soo qora muuqaalkeena intaas ayuu ku eg yahay waa inoo muuqaalka xiga